Ethiopia oo ugu dambeyn isku soo biishuftay Somaliland waxay si toos ah ugu biiraysaa xulafooyinka Somaliland taageersan ee ugu horeeyay Imaaraadka Israa'iil iyo Mareykanka. Maalmihii aqoonsiga Somaliland Ethiopia shuucaba ku jiray. Wadamadan Carabta istaba ordaya iyo reer galbeedka way yara yaabaneed. Balse markuu dagaalkan bilaabmay ay Carab meel ay ka hadlayaan arki weyday. Wargeyskan oo lagu magacaabo The Reporter ayaa warbixin ka diyaariyay Somaliland wuxuu soo raacay sawir cajiib ah. Waa Ethiopia oo qaradii Somaliland xagga sare taagan oo leh Somaliland waan ku aqoonsanaya. Wuxuu ku bilaabay aqoonsigii dhawaan Israa'iil siisay Somaliland una aqoonsatay dal madax bannaan ayaa gabi ahaanba wuxuu bedelay isha siyaasadeed ee bariga dhexe lagu fiirin jiray. Wuxuu qoray wax hore waxaan jiray malaawaad oo aan macquul ahayn hadda waa suuragal aqoonsiga Somaliland waa dhab. Ethiopia waxay la leedahay Somaliland xiriir ka badan midkay dal kasta oo kale la leedahay. Iyadoo ah dalka labaad ee ugu badan Afrika waxay ku xaniban tahay dhul aan xeeb lahayn landlocked. Dhammaan himilooyin goboleedkeeda ammaankeeda wadooyinkeeda ganacsi iyo madax banaanideeda siyaasadeed waxay ku xiran yihiin badda cas iyo Somaliland. Ethiopia waxay ka baratay cashir wanaagsan Mareykan, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta oo kuwaasoo Somaliland la leh xiriir iskaashi oo dhinac walba leh. Hadday noqoto dhaqaalaha, maalgashiga, adeegsiga degadaha iyo iskaashiga ammaanka. Landriska fiidiyowga iyo magaalo weyn wada gaarsiisaan. Maamooyinka miyiga ku dhageysanaya raadiyowga ee Somaliland jaceylkeeda halka fadhiyo inuu fiidiyowgaasi gaadha. Akoogana soo follow gareeya waad mahadsantiin.